بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan halkan kala hadlayaa reer Garowe. reer Garowe waxaan u sheegayaa dagaalka bixinayo wow laga wado inuusan ka dhacayn bixinayo wow haddii aan la joojin qaabka loo wado uu Garowe ka dhacayo bixinayo wow meel la wadaago maaha meel lagu murasayra maaha meeshiina ka dhaxaysa waxa ay Garowe xilligii ugu dambeeyay marqaatigu reer Garowe waa qodadii degtay baa gambool buu ahaayo wax la yoriyaa meesha degi jiray wuxuu xilliga nabadana waan wada degi jiray xilliga colaadana xagga bariga lagu carari jireen nimba wuxuu ducana waxaan ka qaanaa noolow habaar hadhimo wallaahi billaahi tallaahi hadaan la joojin waxa laga wado bixinayo iyo kaantaroolada iyo faarfaarka waxaan qaaf qiyaamay dhacay walaalayaal waxaan nahay tol maanta isaybsan maayaan Garowe iyo gobolka Sool waa wax la yaqaan waxayihiina waa loogi ilama wacana inaynu isku layno dalaan anagu iska lehna iyo meelaanu degannahay inaynu isugu nimaadno ilama wanaagsana hanti la kala leeyahay dunyaha haato dalse haatee in aan ku dagaalanno iskama haysan karo laakiin waxaynu kala haysan karnaa waxaynu raalli isagana laakiin waxaynan raalli isagahay waaynu kala leenahay waynoo kala soocan halkaa qaadkaa diba loo fiiriyo tollimada ha la fiiriyo derisnimada ha la fiiriyo islaantinimada ha la fiiriyo walaalnimada ha la fiiriyo waxaan leeyahay ilmaada reeyal yeynan isku dilin bagcad aanu anagu iska leh waxaan ka socday dhulboobka ah dadku dalka ma wadaago daaqiisa ka dhaxeeyay deegaankiisu kama dhaxeeyo haddii la damcay reer Garowe oo maamul la sheeganaya qabiil la ah inay ku soo duulaan buura wadal iyo tukaraq iyo bixin iyo wow waxay u muuqataa masayru dul bay u muuqataa marka waxaan leenahay haddii waxa laga wado halka aan la deyn war hadda daaraha buurta saaran baynu isugu iman doonaa hal la joojiyo waxa la wado iyo masayru dulka waliba waxaan maqlayay sida looga sheekeeyay ama raggii hore ku hadlay shirkan waxa loo qabtay shaqaaqooyinka ka bilaabmay bixin iyo wow waxaanu leenahay waxgaradka garaadada cuqaasha iyo waxgaradka iyo maamulka dawladda ah Puntland arrin waxa loo baahan yahay nabadgelyo waxaynu isu dhahay maanta isu sheegi mayno dalka deegaankiisana la isu tilmaami maayo cid waliba meel bay degtaa arrinta xadgudubka wax ka qabta oo khaladka ah ee loogu soo duulay ee loo jeexjeexanayo waxa laga qabtaa leenahay oo waxa laga qabto ducayn badan baad wali in badan baad wadeen maanta waxaanu arkaynaa maamulkii Puntland aynu wada dhisnay ee ku wada tacamnay in uu yahay mid annaga shaarka loogu gashanayo haddii maanta loogu soo duulo halka ahaana mayso lagu dhaqaadan maayo suuroobina mayso sidaas aanu leenahay waxaan leenahay nabadgelyada beladu waa hurdaa ninkii toosiyaa qaba masharteeno iyo reer Garowe waxaanu hibanaynaa meeshii la oran jiray cagaare oo aan mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo afar ahayn ee aad ku soo duushayno mudug laga soo duulay waanu hibanaynaa oo maalintii ugu dambeysay askartii Puntland intay tuutihii soo qaadatay dad shiciba oo hurda oo sooman ay ku laayeen waxaanu hibanaynaa taleex oo degmo ka tirsan maxaan ku yiraahdaa Soola 120 gaariya tiknikada ahaa ee lagu weeraray meel kasta oo taaka kasta oo kamida taleex 120 gaari ay ku dhufteen 15 xabadood taaka kasta oo meesha kamid oo ay dadkii shicibka ku laayeen oo ay hubkoodii ku qaateen oo ilaa hadda aan gar iyo garowshiyo midna aan laga hayn waxaanu hibanaynaa dadkii Boosaaso 90kii lagu leynayay wax suuqa
waxaanu hibanaynaa kuwii laamiga loo geliyay lagu leeyahay wali sida ku maqal waan qad iyo garasho midna nala ka sii dulqaad badan baanu samaynay dulqaad dambena samayn mayno dawladdii aanu idiin dhisnay ee aanu idinka tagnay ee aad maanta leedihiin naga saarteen haddaad maanta tidaahdaan dhulkan aan kaga qaadno waynu isku dilaynaa dhulka garowana waxay taallaa 8 kiiloomitir ee ingiriiska iyo talyaanigu ay dhexdooda ahayd oo qolada buurta halkaa ka saaran garowe bay leedahay annaguna yuucadaanu leenahay ingiriiska halkaas u qabsan waxay ku taallaa bogcad aan in la degaba oo la ogolayn